ku soo dhowaada barnaamijkeenna gungaar oo aan ku dul istaagi doonno macallinkii dilaaga ahaa iyo shabakadiisu ay burburiyeen booliska gobolka banaadir kuwaasoo qaarkoodna la qabtay oo ay cadaalad mareen qaarna la hayo xogtooda oo lagu raad joogo maxamed xaaji oo magacyadiisa afgarashada ay ka mid yihiin daadir xaaji ilka xase cadnaan xudayfe iyo cadaawe waxa uu ahaa howlwadeenkii ugu weynaa al-shabaab ee gobolka banaadir waxa uu ku magacawnaa madaxa dilalka qorshaysan ee gobolka banaadir horta asalkii xudayfa aan ku group fara badan oo aan la soo shaqeeyay markii la badbedelayna magacadan aska wada group walba lagu soo bedel magac cusub waay cadaaba la baxay rakacasan la baxay maxamed waxa uu kaga duwan yahay dhalinyaradii hore aan ku soo qaadanay barnaamijyadeena gungaar waa macallin jaamacadeed oo haysta shahaadada heerka labaad ee jaamacadda mana ahan wiil yar oo aan waxbaran oo la marin habaabiyey haddaba inta aanan u gelin sheekooyinka maxamed xaaji ilka xase ee la xiriirta dhagridda bal aan marka hore eegno isagu waa kuma lafahantiisa ayaa noo sharaxaya maxamed xaaji heerarkiisa waxbarasho sideeda kala dugsigii hore markaas ka soo baxay markaas oo idin kaga sheegay markaas oo culumta diinta aan ku soo baxay oo taxadka ay lahaayeen xag diin ahaan markii la kutubada soo akhristay oo dhowr ay u badan yihiin reer saalixiinka iyo bilowul maraamka iyo tajriis waxaan kutubada tajwiidka iyo kutubada kala jihaadiga wax badan ka soo akhriyay سواء مش اللي يقدر تروح حافظ عوالو ميلك مرة جدا نقع القرآن حق دين تسوى مركب ديك سواء صدق حاسو لمي سنة كذا سديد السوق سديد إسلا أكاديمي كيك وحاسو بدي بقاعد مركب كبروا ديك سوى سرة حاول لمي 11 2011 لو كان سديد يو كوي تبانك إلى بيتوقع العيسى أنا أخوتي الجامعة سو قالي لو كنت توانك إلا إلى حتى كان لقيناي شهادة بي إذا خاطئ كدي بوحان قالي مع إنجليش كله برتو مقال كعزبة فرونتير لنا مش حاجة خاطئ شهادة دبلوم إنجليش أسستنت أنا إيه خاطئ مركي كسر أسستنت أنا سلاقي وحن أنت نخلو مع هذا معنى إنجليش أكاديميك إنجليش عندنا مركا دولة كلا هذا جامعة مقدشة بلاوي ماستر environmental study halkan waa maxadka frontier oo lagu barto luqadda ingiriiska waxaana uu ka ahaa macallin ingiriis maxamed xaaji ilka xase isagoo fasalkan ardayda kula wadaagi jiray duruus of preparation one of the international exams of the world. It's a center which provides and prepares IELTS preparation. I think in general East Africa we have only few countries that operates and prepares the IELTS and the TOEFL. Frontier became the very first college started preparing the method of macallinka dilaaga noqday maxamed xaaji waxa uu horjoogo ahaa shabakadii ugu halisanayd al-shabaab ee muqdisho ka geysata falal argagixisanimo waxaana sida ku xashaxda booliska gobolka banaadir madax u ahaa qaybta dilalka qorshaysan ee shabakadan maxamed xaaji iyadoo uu ku-xigeen u ahaa sharmaaka cumar axmed oo loo yaqaan ugaaska ama ganay kaasoo ay hayeen xogtiisa iyo sawiradiisa booliska gobolka banaadir ayna ku raad joogaan axmed faarax iidle oo magacyadiisa afgarashada ay yihiin shuuriye madoobe nuunow iyo ramadaan cabdiraxiin mursal oo la baxay saalax waxay ka tirsan yihiin shabakadan dilalka qorshaysan qaybta istikhbaaraadka ama sahanka waxay ahayd shabakad kale oo ka tirsan kooxda ilka xase waxaana ku-xigeen u ahaa dhinacaasi saalim siciid oo ay gacanyaryaal u ahaayeen haashin carab faadimo korneylo maryan oo ah xaaska saalim cabdiraxmaan sheeba iyo cabdinaasir axmed oo ah maqanayaal ay boolisku ku raad joogaan maxamed xaaji ilka xase waxa uu ka mid yahay dhalinyaro dhowr ah oo al-shabaab ah oo aan horay u soo waraysay kuwaasoo fikirka takfiirinta iyo xagjirka lagu soo baray dugsigiisa qur-aanka taasoo ah halka uu kala jaan qaaday al-shabaab horta fikirkan wuxuu ugu dhashay fikir oo anigoo weyn ah
waa ka yaraa macna marka gaar ahaan tusaale ahaan dugsiga hoose dhexe markaan dhiganahay dugsiga quraanka dhexe dugsiga quraanka aan dhiganahay wuxuu ahaa dugsi itixaad ay leeyihiin xiligaas dugsiga aqwaanka hal jir gobolka dhan waa looga imaan jiray marka loo markaas ahaan xiligaas suufiya ku badneed magaalka iyo gobolka laakiin magaaladaasi waxa loo imaan jiray dugsiga la aqwaanka oo caan waa dad tagtay mar dugsiga aqwaanka dadaaday ameel aan hada u sheegi karo marka dugsiga waxa macallimiin oo ahaa niman oo xiligaasi oo atxad ka dagaalam jiray oo nin la dhaho macallin Suleymaan nin la dhigi jiray oo howlgaladii calal ka dhici jiray Itoobiya ku baxay maxamed xaaji ilka xasan waxa uu shaqadiisii ugu horeysay al-shabaabnimo ka soo bilaabay magaalo xeebeedka marka oo halkii uu ku soo dhigtay dugsigiisa sare waxaana uu ku doodayaa in dugsiga sare uu soo dhigan jiray ay saameyn ku lahayd kooxda al-shabaab kuna soo booqan jireen horjoogayaal ka tirsan kooxda xiligaas dugsiga waxaa noogu imaan jiray waa xili hore sheekh Fuad waa nin iska yaraa xiligaas xoogaa da'ahana nin weyn u ogyahay iyo aadan xaashi iyo nin la dhaho maxaa la jiray Cabdullaahi Salaad iyo Abu Zubayr meesha noogu imaan jiray kulli ma ka jirin xiligaas laakiin ilka xasan waxa uu marka uga shaqayn jiray habjaajuusnimo oo isaga koox kale ay ka dhex shaqayn jireen inay macluumaad ka aruuriyaan dadka kooxda ka tirsan iyo dadka ku dhex nool deegaanada ay ka taliyaan waxayna ka warbixin jireen wax kasta oo kooxda dhexdeeda khatar ku ah balse markii ay dawladdu la wareegtay magaalada Marko waxay isla iyagii laga dhigay koox qaabilsan qalqalgelinta amniga magaalada Marko dawladdu marka meesha soo tashatay markii isoo galeen oo markii kor laga soo wareegtay calash ilaa iyo markii magaalada marka la qabsadayna ragii daaqiliga ahaa ayaa waxa la yiri qaarijiga isku bedelay dawladda imaaday daaqil uu ku soo baxay kan qaarijiga ana taasoo qaarij ayaga howlgala ilaa dadka ayaa yaqaan oo intaan ku soo koray mugta ki isbedelaayo ki jaasus ah askarti dad cusub hadii loo keeno yaani dib way naqaan in loo tilmaamo laakiin anaga wada naqaana ma laga shakisan hadana sidii waxa la jiray aan ku bilaabay hawshii ugu horeysay kooxdan wiilka xasan ka mid ahaa ay Marko ka qabtaan waxa ka mid ahayd dilkii wiil dhalinyaro oo lagu magacaabo Asad Xaajow kaasoo ka shaqaynaya Xaajow bookshop oo ay qoyskoodu lahaayeen wuxuuna sheegay maxamed ilka xasan in dilkaasi uu geysay nin saaxiibkiisa isna uu ka fogaaday in la aqoonsado maadaama ay Asad saaxiib ahaayeen Asad aan shakhsiyan aqaanu ahaa yani in fiican oo ahaa dawladda u shaqeynayeen waxba muusan ahayn meesha station road ku joogay footadaas uu iska joogay family ahaana yani waa dad aad loo yaqaan footada iyo sawirada dadkaas xiligaas gobolka dhan waa laga yaqaan sawirka dugsiga sare shahaadada xataa isaga yaqaan banaankan joogay oo meesha isaga station roadtiisa munishibi meel la ku tala sarta dheereed oo muxaadarooyin wax lagu qaban jiray anoo xagga taagan aan waxaan arkaa anug oo marka dambe dhiman doono oo budbooda la dhahay doono amesh taaganay Asad telefoon intuu qabto wuxuu dhahay waraan imanka wada carreen gabigooda wallahi fulay waay shaabti iyo wixii iyo kan budbooda wax muusan hubsan ninka ku bilaabay abaar marka xabad ina anaga soo wada orod meesha ka imaanay ninkii jeefa aragnay inanka bisko la xariisana bas ninkii soo wadnay waxa dhacay saan u dhahay ninka u dhahay telefoonkaas ku hadlay telefoonkiisa waa kaasa anoo meesha taagan u dhahay nimanka soo galeen wuxuu gudbinay Asad markaas uu noolaa ana waa arkay ana paralyze uu noolaa yani meed ahaan uu soo tagay ninka laakiin markaas waa noolaa Asad marka dadka ma sukaan yaqaanaan qaarkood si kale saaxiib waa una footada iyo wixii marka ma ku darsamin baana hadhow siisan far ii soo galin banaankan ka istaagay maxamed xaaji ilka xasan waxa ka mid ahaa waxyaabaha xajiibka leh ee uu sheegay in markii magaalada Marko ay dawladdu la wareegtay uu la noolaa Jeneraal Ismaaciil oo xaruurtiisa uu saaxiib la ahaa iskuulkana wada dhiganayeen wuxuuna barnaamijka gungaar u sheegay in maalinkiina uu gabaad u ahaa guriga jananka habeenkiina uu isla guriga bambooyin ku tuuri jiray si uu u dilo jananka uu gurigiisa ku noolaa ee uu la tacaamulay sida xaruurtiisa oo kale آخركينا وحاو مركي ومركا كدلي وهي وجنرال إسماعيل أحمد عثمان مكيالي كدلي سيدي دي اللواتنكي بشي تمنا سنة كي لبدي يكون يلحي طبانكا دقمدا وابريا مقالة مقدشو نين وحال جري إسماعيل جاشان اللحي أها وعن وايس شنامدا عن كامركا كتار شيخ إسماعيل مركيالو دمغا شانيك اللهوا جنون لكن سياد بروها markii dawladda ay dadkii xagga markii shabaabka ay qabsadeen asal
oo shaleemada laga burburiyo laga bursado ahaa meesha intuu imaaday dawladda uu soo hubeeyay dib loo sii jirnay waxa la jiray darajadiisa markuu soo weeraray si kala daan u dhigay marka aniga iyo wiilashiisa saaxiib waa ahayn shaleemada Ismaaciil guriga ku dhiganaa buu deganaa baan weligeed magaalada markuu soo galay gurigiina waa deganaa ninkaana janan waay adeer iska dhaha marka mugta ilmiisna saaxiibana ninkii aameesh dadka qabtay ku mid ah marka Abdulqaadir Siidi isagii gurigaas qabtay ninkaasna waxa waay dadka isaga iyo ciidanka iyo dadka si gaar ah u beegsan oo kamid ah isaga dhowr mar oo aan shakhsiyadii iga badbaaday oo aan gurigiis bam ku tuuray ciyaarkiisa saaxiib waa ahayn hadda marka dambe intaan ku helay ninkii waxaasna way soo dhamaadeen waa la soo weynaaday jaamacada la dhameeyay dar hadda Muqdisho kan 2 sano ka hor iyo hal sano ka hor inay tahay jara Liberian ku helay Ismaaciil asoo Interpol shaqeynaa booliska مود شن سنة لح سنة كسورة تنكي dadkii meesha waxa waa soo baabaa inta la islaamad moqt laakiin to imaaday isagoo sarkaal la sii dalacsiyay oo yaani Interpol u shaqeeyay wiilashiisa saaxiib waa ahaan anaga marka si hadii la dhaho xoogaa waxa ugu jira adeernimo iyo wixii qaraabo min laakiin adeer iska dheena laakiin haddana hooshii ana bariis adeer iyo waxa inaan ana ugu dambeyn hada ninkii saaxiibkayga Hashimi أفرسمينك يعني شوري dilka Generaal Ismaaciil kuma uusan ahayn Maxamed Xaaji kaligiis waxa ka qayb galay Haashim oo kamid ahaa shabakada Ilka Case waa kan Haashim oo isagana ka sheekeynaya qaybtii uu ku lahaa dilkaasi wuxuu fadhiyay maqaayad ku taalo iskuuska waa bari iskuuska shaqaalaha wuxuu fadhiyay insha Allah soo dooraa عندنا عيدنا مركزنا أو سمنار كما هذا الشيء تلياني من سركال وها حافظ صوق الحافظ يعني كل صوت وقال مركز تحسن sidoo kale Maxamed waxa uu sheegtay inuu gacantiisa ku dilay Xaaji Baano oo kamid ah waxgaradka magaalada Marko xilli uu masjid ka soo baxayay waxaana isagii dhagar qabayaasha la socday banayseen dilka qof muumin ah oo ka soo baxay masjidka Eebe yaani ninkan isaga ah oo Baano Xaaji Baano waa nin orto dhowada dhan lagu yaqaan markii isaga laga soo laabtay dabadoonnimadiisa iyo durqnimadiisa aad ka ahaa markuu masaajidka ku soo baxay masaajid yar Ar-Rahma Allah oo ku dhex yaaris Ramadan weyn ma aha oo wajar ku dhaxay koo kale waxa jir duruqbada ku dhaxay sharafada yar oo duruqbada ay ku tagtaan kii uu soo baxay banaankan ku helna marka laakiin waa la soo confirm gareeyay in ka sala ala culaali markii dambe waxay kooxda Al-Shabaab u soo bedeleen Maxamed Xaaji inuu ka shaqeeyo magaalada Muqdisho oo uu sheegay in waqtigaasi uu haysan jiray kooxda waxdishan inuu magaciisa ku sheegay Cabdiraxmaan oo ay ku xigeenno ahaayeen Cabdi Majiid iyo Cabdi Muuse kuwaasoo midna la qabtay midna la dilay sanadkii 2012 Maxamed Xaaji markii ugu horeysay uu shaqo bilaabay waxay isku koox noqdeen Galadila iyo Mooryaanka oo labadaba loogu soo xulay inay Muqdisho kala yaqaanaan waxaana hubhayso u ahayd Felis Macow oo xukunsana ku jirta xabsiga dhexe ee Muqdisho ana shakhsiyadan garad ninkan aan ku soo gaaray wax yar ana ku soo gaaray khilaafkii jugti wixii dhacday waliya kii kadib wixii dhan waa la bedelay lahay galadaan loo keenay oo Galadilay galada waxaan Allah la shaqeysta eragin hada asaasta magaalada waa ka saay wax ka qabta sida dadka loo asaasay oo wuxuu dhahay garad niman jabhada oo isku jirteen xilliga laakiin aad ku yaqaan aad aqoonina jiro oo guur hada hoostagaan waa laba nin oo active ah ku keenay yiri isla shaqeysta saddexdiin labadii qof ee waqtigaasi la shaqeynayay Maxamed Xaaji hadda galad waxa uu ka baxay Al-Shabaab halka Mooryaankana la baadigoobayo ay sheegeen booliska gobolka Banaadir inay hayaan macluumaad ku filan in la soo qabto oo ay ka mid tahay sawirkiisa Maxamed Xaaji waxa uu ka bilaabay Muqdisho hawlihiisii dilalka dhagarta waxa uuna Muqdisho ku dilay dad badan oo haldoor u ahaa bulshadan kuwaasoo isugu jiray saraakiil shaqaale dawladeed iyo dad kale oo bulshada waxgal u ahaa dadka haldoorka uu ku dilay Muqdisho waxa kamid ahaa Generaal Cabdullaahi Maxamed Sheekh Xasan Quruurux oo ahaa sargaal ciidan oo waxtar u lahaa dalkan waxa uuna jaranka ku dilay masjid ku yaala Waabari isagoo ka soo baxay salaadii cishaa maadaama uu sheegay in maqribkii uu ku adkaaday dilku sabab la xiriira ciidamada ammaanka oo ka dhawaa aaga
جنرال كان ماشي soo fadhiisana maqribki cishaa wuxuu ku tukanaa marka maqribka ma la dili karo oo degmadu u dhow yahay degmadana ciyaalkan racad ka joogo aagaas isha hamadu waata marka waa cisho marka niyo dhowr mar isku daynay waxa la isku heshiiyay hadii ninka bubuk la maqlo degmadu u dhowdahay isgoosada day xiraan inta laga baxa ragina la lugayaan hal luuq waxa jir marka mar walba luuqa xeelada la lahaado oo lagu baxsada jiro oo la calada wadooyin kala xirxiro oo bajaajta la barbaaray dhalinyarada iyagoo waxooda wataana meesha la soo maray dilka jenaraal quruurux waxa uu ka mid ahaa dhagarihii ugu xuslaa uu sameeyey maxamed xaaji ilka case waxa uuna ka hor dilkaasi diyaarsaday 2 koox oo bamgacmeedyo ku kala tuura xarunta degmada Waabari iyo bar ciidan oo ka dhaweyd meesha si uusan gurmad ugu imaan inta dhagarta dilka ay socoto kuwaas oo markii uu isagu teleefanada ka baaqay tuuray bamgacmeedyada kadibna uu isagu fushaday hawshii u socday oo ahayd dilka jananka masaajidka cisho ku tugtaa marka qorshaha waxa la keenay waa la fariistay shirc anaga waxaan dhahay shirc hoosh adan keenay taala soo qabsan la adan keenay taala marka muqdisho idinka dhex joogna waxaan wixii hub iyo fan loo baahday diyaar waa laakiin hoosh idinka wada جنرالك مركا هوش أنا وصل شوتي نيوادا مقدس وكل يخان بدبد أنا سلمان وصل شوتي سلمان ترى حوير نيو جنرال كرتا حل ملوجا ذكر لون ملوجا ذكر صدح ملوجا هذا إلى لبوا وطه مركا استافكا لبوا واي حل نسقوا نقول بشغلي سقب صدا نقول بهلوك هذا مركا أنا حكون فكري دقمدا أودو waxaan nahay markan iyo macquul ma degmada hal dhagax lagu qabto oo mashquulin ah hatta albaabka ay isaga dhufta say barto intay difaac ku galan xabada ay tooraan ee isku qasanto ugaaska wuxuu soo jeediyay degmada hadii lagu dhufanayo kuwa kale oo buundadana gaaray meesha u yaalo jidka day dhacday soo dhaqaajinayaan ayagana aan ku dhufana markii warkii la isku raacay talada raafiyay dhagaxyadii la keenay oo la soo diyaar garoobay saddex markii lagu soo diyaar garoobay ugaaska caawba hal loo keensaday hal qof loo keensaday maxaa la jiray jananka hal staff loo wataa bas sayidka iskuul tugtay markii cishaha oo laga bixi rabo waa u baaqayna dhalinyarada markaan u baaqno baaq aan ku wada dhufan labada dhalinyaro in jugta ay dhacdo kadibna xabada lagu xijiyo saas ay ahayd si xabada dhan ay u dhumaanba in jug markii dhacdo xabada waa la wada yeerina waqti ciidanka yaa tuuray meeshana ku dhex qarsantaa la rabay kadib sidii jugtiya dhacday oo ku qaban ugaaska iskool daan soo siiyay الله أن حريص جنرال محمود حاج علي وكمدها سراكيشة عيدمدا أيا كمدها ددكو دلي محمد حاجي وحانا وكدلي دقمدا بوندر حلو جنان كورفا دي غورغيسا waxaa soo gudbiyay wiil mootolaa soo gudbiyay oo dhahay in janana meeshan joogo markaan tagay oo aan shaqada soo fiirsalay dhahayniyo soo fiir dhalinyarada xagga gudeen bonder meesha ugu xarunta badan waa dawladda maxaa la jiray soo fiiri shaqada markaan tagay oo maxay toole aan soo fiiriyay meesha way adag tahay aad iyo adkaatay waxaanay ninkan general ma okay maxaa ninka banaag iska fadhiy horkan general ma aan dhahayniyo ku qaldamaysid هروح موجود ما جيسان شيء حتى نشخاص قال هروح كجنة مع أنا كسركال وادي أكتر كان جن ولا كنت سوف لسنة هل ويلا فريسنا مجرى عنده مش واحد مبرو عنهم بولي جيدا تاسو كل سنة تاسو سكوا خواء بس أوكي واحد مرك قلب عن ربني قلب عن سوري قلبيسي صوح قولي الله دسايا صوح أنا يشوري يوحاماني يوجاس شقدا إلى شق الجنة ومك ilmo yareer ma kaysan kartid waa kaaga dhaawacmi karaan ka dhiman karaan ragii waaweynaad in xaniyooda fuulaha markaan meesha imaanay janankii isaga ahaa jananka waaba fadhiyaaba subaxa waa haddii ani iyo ugaasaan xiranay shuuriina waa u xiran tahay shuuriya nooha xag u taalo noohadaan ka qaadan aan ku yiri ma nooha ma la bixi karo سينا دينا يحرتان إسقوس بحبدا دعمه والله اللي بيحكي عنك ويري وجفينا دينا الله فن وطورنا عنده بس قانك وخادنا إنه هذا عن خادنا حدا أدنبه وحركوا يا جذوه قلي بيحد حاجة أجمرني جروه قلي إنك شورية كرر نقدامنا ما حدا إنك جروه أو جسنا جروه واحد كتير من أخانا وكذا يعني وحصاب بحب جننكي أو جننكي سواته ودركي ملتري وته ما أغاني واحد دقها أوتون بس كله بالجم في عنوته يمت كله استاف
وطا يعني غير وطا هاك وطا أصل صباح وراني مكو صباح إننا نص على نك وين كسكيل علي بس كم وطا بس إنه هذا الجلان أنا جو أنفلين فك ده لو صار بهم ما تهابني بمركانك بس فيرين وأصلها فينا يعني هوش أصلا صوب بعد سيف دوني نوع نقد من كان مش نوف دين عادي إسكا هذا بس كله سوقاتي إسكا خلص تهدي له ذلك ودي ما ودقنا مالن كلابات مالن كلابات أصل السدي صوبلانك فديه بوك أنسيني ما هذا اللابتوب صار اللابتوب كان صوت دفي أصلا عرني كوفي عن كل قلم روبنا أولي قانا كوفي عن كل قلم أصلا عرني xeer ilaaliye xigeenka qaranka maxamed cabdiraxmaan oo gurigiisa ka baxay una socday hawshiisa u khidmaynta shacabka ayay ku dileen waddo ka soo baxda gurigiisa iyagoo kadibna ku baxsaday gaarigiisa balse iska dhigay gaarigaasi markii jidadka oo dhan laga xiray wuxuuna sheegay in xeer ilaaliyaha ay ogaadeen xilkiisa markii ay dileen kadib isaga ayaana gacantiisa ku dilay maxamed xaaji xeer ilaaliyaha bajaajka aan ka soo deganay gaari kama hoostaanay كان واسو نك لبي كسارين نك كلا إلى أنا بجناي نك ما هذا قل نصور بس هذا قل نك كلا إلى الله أنا فرنا صاحبه ومشغول أنا نك هذا وتابت ومشغول سي مكتب بس كيس ما عايز هذا ولا قاعد كرر كذا نك كلا إنه مركب نك إلى عليه واحد دلائي إنه إلى عليه أصلا كرر سوى كان هي حاجة قل أنا قل أنا قاعد أنا قل هي نك قاعد دمر مش صاد حكي أبو نوع كذا بقى استاجيب سميه أبو دش هذا عي كان كلا تقول هاي بقى قبتي صدق أنا قارك صدق أنت صدقتي ومنطقي وفريستك عيو اسكت درس منو سمع عبين مركان وقاعد عقد لك جد ولا مرة مكت تين ضوء على أسكار الله عنك وإحنا ملوهين عن ملاء قوسن كدب وحمقلنا قدرنا كما قدونا نك أو ده يور هبرة ننا تلفون قول له نجي سنة أنا قوم بيشتكي مرين دبك ورنك يستجع هنك كلا ولا صارناية سلوا لا فمرك نك كلا ورنك كلا ما أخوزنا الله دي بنك فاهم دونا نك حتى إنه وحاها فلولا أنا أوغان وديك اللي نفتر كيسة دي بنك أوغان دونا نك جاري لا صارنا إنه الشقة وحكى لها يعني حرر عليه محكمة ونفتر كشغينة أوغاني فاكتور لكن لما هو sidoo kale dilka taliyay saldhigga Wardhiigle ayuu wax ku ogaa in kastoo uusan isagu ka mid ahayn kooxda wax dishay wuxuu ku doodayaa in kooxda wax dishay u dejiyeen xeelad ay ku qiyaameeyaan taliyaha kuna dilaan in ragga meesha uu ninkan ugaas yar kale saalax uu meesha mooto ku barbaray mooto barbarad laga dhigay dabada taloomara hubkii uu soo dahay dib u imaaday ay qaateen furtay موت أواس مش حكوا بربرة صالح وحكوا دقيقة عن الموت مش حكوا بربرة عبارة مش جوجا رجعت موت الكوت ولا معك سانسي عمران سليم مش جوجا دوالي إيش سان كسوهن ليله sometimes نوع أركيس خوفك أنا عنا حتى ما نقام maxamed xaaji waxa uu sidoo kale sheegtay inuu wax ka ogaa dilkii aamina oo ahayd baare ka tirsanayd nisa waxayna ahayd qofkii gacanta ku hayay kiiskiisa markan ka horeysay la soo xiray maxamed xaaji aamina meel aan ku arki lahaa ana ma dhaafeen ciid dadka qowl number 1 aan ka ah xataa ana ogta taas waxtu fahma aamina rag fara badan horta xaniya qabato oo markii meesha joogtay wax badan ay haleysay waxa kamid ah yar la xukumay oo la dhahay maxamed mare طبعا محمد marka dad milyan qof baar oo soo noqoto in hal uu fiirinayo aamina waxay u tin ku ahayd al-shabaab waxayna dhamaantood u arkayeen qof khatar ku ah maleeshiyaadkooda la xiro isla markaana aan marna gorgortan ka galin shaqada ay qaranka u haysay waxayna sidoo kale caqabad u arkayeen inay aamina waqti dheer joogto baarista iyagoo arkayeen qof marka la soo xiro ay haddana sanad kadib markii la soo xiro isla iyadii joogto ay aqoonsan karto qofkaasi maxamed xaaji ilka xase waxa uu sheegay in kooxda aamina dishay oo isagu geeyay goobta ayna hagaysay qof dumar oo is yaqaaneen mid ka mid ah dilayaasha waxaana dilkaasi fuliyay sida uu sheegay ugaaska oo qofka sawirkiisa aragtaan oo la baadi goobayo iyo cabdullaahi kuusane oo isagana sawirkiisa aad aragtaan oo la baadi goobayo iyadoo hubka wax lagu dilayna ay watay maryan oo ahaa cabdullaahi kuusane hooyadiis isla markaana xaaska uu qaba salmaan oo kamida shabakadan la hayo kiiska aamina wuxuu u dhacay saan u sheegay hal shay baan ku diray
وحقيق اللي صوحي ولا عيالك ود جيمش ما لنا عطوا من كونه كرت أنت إن أنا وياس يجروب كيسة عن وضعي أو عن جيمش عن بنانك كيسة داوش ساقطة وجودها أنا كجري كوسنا أو كوسنا مركزنا وتويدي سوعي نايا أول شيء صارنت وحنا شكي يجري أمين قفك كلاس كله فدي إنه قد بهذا كان حتى بنانك وجوم كده هنا أركيد بركة كاش فصل كلا لفدينا أكتر فهمتي وحنا سي قياس على قفك فصل كلا فدي إنه صاق عيسو استاجي وبنانك هو صابعي وكوسنا الله هذا كده بنقول هبتي يعني كلام تقول بحنا كده بنوش ساسي ولا حد دمر وها كوسنا على صح هذا الشيء كده بنوصل صلاوات كده بنقول إيه صدق هذا المرة السوق عليه كوسنا وحوك استاجب البابك لا هو شيء قش يعني لبا ku gashay uu saddex ku socday dadkaas inkii wax fahma taan kala tagna dadka warkii ordaa samee ordan ku sanay oo fiirsanay halkan waa jaamacadda Soomaaliya kanina waa fasalkii ay dhiganaysay Aamina lagu dhex dilay waxayna maamulka jaamacadda ii sheegeen in fasalkaasi wax lagu barto ay ugu dambeysay maalinkii lagu dhex dilay Aamino kadib markii ay diideen ardaydii kale ee jaamacadda inay wax ku dhigtaan fasal lagu dhex dilay mid ka mid ah ardaydooda ardayad Aamina waxay ahayd qof ku firfircoon waxbarashada leena hami fog waxayna dhiganaysay kulliyadda shareecada iyadoona jaamacadda Soomaaliya ay ila wadaageen natiijooyinka imtixaanaadkii ay gashay ka hor intii aan la dilin Maxamed Xaaji Ilka Xase waxa uu aaminsan yahay in dadaalada ciidamada ammaanka iyo baraha koontarool ee la badiyay ay dhabarjab ku noqdeen kooxda waxayna taasi meesha ka saartay kooxdii wadan jirtay gaadiidka lagu horjaro gaadiidka kale ee kadibna saas lagu dilo qofka gaariga wata isagoo sheegay in hawlgallada noocaas ay gabi ahaanba kooxdu joojisay sariirka waa balaart sariirka yani waa baabay hada dheh fashilkii sucaabiyka iyo waxa ku dhacay fashil fara badan kadib iyo goobaha oo ciidanka checkpointooda la badiyay in waxay jirtay mar badi ex control la gaarin xaniyaan lahayn waqti hadda ex control dhaafsatay xataa galmudugna kan wuxuu ku sameeyo ma sahlan hada مثلا استراتيجية أمنية ay dejiyeen saraakiisha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir waxay ku qasabtay al-shabaab inay yaraadaan falalkooda argagixiso waxaana meel kasta la dhigay dhalinyaro boolis u heegana ilaalinta amniga shacabka kuwaasoo ku qasbay maleeshiyada al-shabaab inay isaga firxadaan magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya waxay samaysay wax kastoo ay ku xaqiijinayso ammaanka muwaadiniinta waxayna meesha ka saartay falalkii argagixisnimo ee gaadiidka lagu horjeeray gaadiidka sida al-shabaab laftigooda qirayaan waxayna ka dalbanayaan shacabka inay ka gacan siiyaan ammaanka wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Aadam Isaaq ayaa sharaxaya guulaha arrimahaas ay ka gaareen ciidamada dawladda Soomaaliya sida aad ogtahay waxa ay sameyn jireen waayadii hore markii ay ficil xun inay geystaan ay ka cararaan laakiin waayadan dambe laamaha ammaanka waxa ay la soo baxeen la falgalkii ugu adkaa cid allaale cidii wax geysatana gacanta lagu qabtaa cid allaale cidii wax isku dayi doontana waxaan u sheegayaa inaysan ka badbaadeynin laamaha ammaanka haddii ay falka ay geystaanna aysan ka baxsan doonin Maxamed Xaaji Ilka Xase isagoo macallin jaamacadeed ayuu ku dhiiraday inuu magaalada wax ku dhex dilo wuxuuna ku doodayaa inay dadka dhan maqan yihiin oo aysan aqoonsan marka uu wax dilayo waa iska jirtaa mucjiso aan saxood marka wax dilis dadka ku arkayaan meesha wax ku dishay maalin kala daymaad caadi qalbiga wax markana waa la kala yaacay oo aqaanani isla maalinka birmaanka meesha imaan shaaq cabeen dadka ka shaqeynaa marka dilka dadka kaliya kuma ekayn Maxamed waxa uu sii dheeraa inuu ahaa tababare ku xarbiya dhalinyarada falalka argagixisnimo ee dilalka shacabka ay ka mid yihiin wuxuuna ka dhigtay wax ciyaar inuu dadka dilo isagoo soo kaxayn jiray dhalinyaro uu ku biiriya al-shabaab kadibna si toos ah u tusi jiray isagoo wax dilaya si ay ugu daydaan isagoona ku oran jiray waan idin dhigaya ee dhameystira taasoo uu la jeedo inuu qofka u dhaawacayo iyaguna dhameystirayaan marka dhahan ayaan wadan iyo inoo laba wiil oo cusub la soo wadaa aad u fiican oo ladan ka soo jikmay bal shaqo ma bari kartaan wadaas wiil hada qof darwala oo sameeyo shaqo ma bari kartaan ha aan loo keenaa marka dadka marka dad
tabar ahaan dhameystiran waa laakiin practicada ma leh theory ahaan way dhameystiran waa la baraa marka shaqada kama keysana mas'uuliyadan keena anaga wadan shaqada haye waladan baraa okay ana garaada iyo wixii oo ku dhigan ko dhameystiran meesha ka dhaha furo control ku xal xagga istaagaysa aad waa kaas ugu haye bash wala bilaabay ninka maalinka labaad qof kala keena maalinka saddexaad marka active ay noqdaan isku filanti marka Allah markii loo fadaatam marka magacaan kula shaqeynaa ragaas anad Abdulrahman aan kula shaqeynaa ma yaqaan laakiin dadka uu tababarka noocaas siiyay waxa kamid ah wiilkan oo lagu magacaabo Shucayb kaas oo hortiisa dilal ku sameeyay marka waxa imaadnay hoow in la baxaa la rabaa oo maxaa la dhihi dooro la aado waxaan dhahay ana markii ilaa hadda ana in lambar leen kala marayna koodhe waxaan dhahay lambar iyo macluumaadaan kala marayna ani ziyaado kale soo gelinaan dhahay mar hadaan ka baxo anoo dadka ayagu macnaa horta waxay ku leeyihiin meeshaas aadade tahriiba aadade inta ka baxaade wax saas amal sheeg laakiin anna waan dareensanahay adina waxaan isleeyahay maxaa la jirinayo qof waa warkaaga waa la fahmi doonaa mise system waa ka qaldami doonaa waalid xaqiisa ahaato mise si kala ha noqoto waxaa la ilaa inaan soo baxdo maxaa la jiraa meeshaas imaadado aad ashar qaadatida muhiim ah waxaan leeyahay aan xamarka ma bixi karo habeenka ma bixi karo maalinka ma bixi karo xamar dhaxdiisa waxaan leeyahay meeshaas dadka maxaa isku sheegaa wadnaan lahayn meesha kama soo qaaday wax kale oo meeshaas hadda maanta ziyaadeen shaqada qabashadeeda leemahano qabashadeeda marka waxa marka isku fahanay tababar iyo waxaas iyo in wax lagu soo fahansiyo 10 oo wax fahansiin iyo wax kale ma baahnaan ahniyo ma fahantay ana hadda maanta 10 ay akhrisida wax ay ga dhaadhicisay ana hadda uma baahnaan ahay marka hadii ay si kale ay jirto ana safar ma soo aadi karo xumaana aysan naga noqonaynaa بس وحولها مرك كله واسكون نقدان كله رجع وحاول رجع امتحان waa isku laabteen marka waxa la hortaninka waa laga wareysana barnaamijyada ayaga isla wada hadlayaan saan jeclahay anana aan ogeyn laakiin se ugu dambeyn markay soo wada fahmeen waxay soo go'aansadeen aan dhiijir in ay shay noqoto gartaas ay macnaha macquul ay noqoto uu soo celiyay wuxuu dhahay maxaa la dhiijirinayo shaqada iyo qaabkeeda iyo nooc loo qabanayo iyo wax dhan waa lagu fahansiyaa الإفانسينا من كاسا معنا محل يجري صاحبك راعيسا سو مراتك أهانة تفهمي عربية كوحلة سحوته وقامنا محمد حاجيل كحاسة وحيسكو ديان هنا يدلان هوية المكو كورسانة سيكا قراحسيكا جاتكا اغاركا سيلقا أمريكان كهالكاس اي مركي اي كورتاقين هوية داسي دمانتود وديحي وايين بسولدي اي وتين وكوان كوحدي بسولدي وديحي وايين ومن نوغو شرحا يا وحي مالكاس كل حي horta intaan aqaano horta waxayna hayeen ilkaas Arab Ahmed iyo aniga Yaxya oo laakiin waa Ismaaciil saxda markii oo islaantan inta la aadan ka hor Ahmed ayaa aan isku xiray ilkaas wuxuu dhahay waxa la shaqeynaysaa ninkan kula shaqeynayo wuxuu dhahay meeshaas naagtaas oo irgada wax soo doorato iyo waa liisha noola sharaxay irgada soo dooratay islaantaas ayaan ina aadina rabnaa waayahay ayaa dhahay أحمد يقول جرويده أحمد يعني جوا سوء أدني مركورة الكعس يا إبر سلام تجاد يجدا يرجعني صوت دورته إيشيء أحمد نسوي بر لكن أنا يوم كده بس أحمد يا إسرائيل وسوانيني وإيمانيني مرنا وين مقنيد إذا مقنيد والله وين باقتي مرنا مركا أدني وإذا أنت مركي لهلا كده والوانا ما أنا كده بسين وأودم بسي والهلا هبيني يهيد مقرب مركي لسودو كده ماشي marka tagnay oo irtijaadka kadibna meeshii ayaan howlgalkii in la furiyo rabi howlgalkii istulooyinkii iyo wixii aan ka tibeen kadib anaga wax ka soo tagnay wax ka soo cararnay meeshii xoogaa yar buuq yar ka meeshii wax ka soo kala cararnay kadibna anagoo carreena ayaa ciidamada dawladda dhaxda u galnay horta muddo waan ka soo qaaday waxaan keenay cabirka siliga tala gaarin bacaad ahayd meesha ku tiji iga digeen adiga 10 daqiiqo ma soo wareegan soo qaylaay soo baxay ilkaasa niyo waa baasha ka halawday inuu ka gaaro meesha ka tageen dad ha qaadan koorsa daasho shaqo qaadan haybayaan ay mana diidi kartid waa soo qaaday asoo kontrolkan ku soo dhacay marka kontrolka oo askarta nasteexo ku soo dhacay niyo
aan horta systemka qabasho ahaan marka aan kuu sheego oo haddii meel kasta laisla aado mise meel kasta la soo maro horta wax aan karsamaynin waxay ahayd anagoo shaqadaas naga soo baaqatay kidibkaas u imaaday ay tahay meeshan cakaara taqaane ay tahay ya meeshan lagu qaban doonana ay kuley ay tahay madiina salkeeda ay tahay oosan wixii oo qabashadeena iyo intaasna aysan u dhaxaynin wax aan 10 daqiiqo dhameen hataa haddii aan fiirino 3 daqiiqo camal ah soo cararayna oo orod fiican ah marka meesha imaana bajaajkaasna 7 daqiiqana ma aanan saarnayn si aan hadda aan qiyaasay marka been banaanka laga tago ujeedaa marka umuum isku dar intaas ay baash hooyada ay rabeen inay dilaan kooxdan oo lagu magacaabo Baarliin ayaa isaga carartay dalka iyadoo ka tagtay carruurtii ay u xamaalanaysay kadib markii ay u baqday nafteeda waxayna iyadoo joogto Turkiga la wadaagtay barnaamijka Gungaar muuqaal kooban oo uga hadlayso wixii ku dhacay maalinkaasi iyo hadda sida xaalkeedu yahay goor saacada ay tahay halka saac oo habeenimo ayaa rag ay imaadeen hubaysan الحمد لله رب العالمين وكانوا لهاي halka madaxaabay xabadiga qabteen bistolad dibaan ay sheegi doonaa makaaruf halkaas ay qabteen xabadii makaarufka ee bistoladii makaarufkeedu way dhici weysay oo ila soo wareegay intuu ay qabtay xukunka ilaahay way dhici weysay bacdeen kii labaad markuu ninkii koobaad laba xabadood uu qabtay ninkii labaad uu soo wareegay kii kala imaaday oo labaad halka uu iga qabtay kilida ah bistoladaas waxa la yaateetay xabadii way dhici weysay qadarta rabbi uu liga soo wareegay halka laabta uu iga qabtay weysay sayaniga ay waan maxay shay ragina ilaamaha abniga ay gacanta u galeen markaas ba control ku dhacay aniga markay meesha seeqado korontada iga maqneed ka bacdiya gacanta meeshii laga qabtay markay gacanta meeshii laga qabtay kulay cadkayga dambeeyay targad waxa laga dhignay ma aqaano marka hadda aanu cid targad ka dhigaynin sharciga islaamka kama weynin hooyo Soomaaliyeed oo konton habeen umul ah ayaan ahaa ciyaalkayga meel kuma sheega hadda waxaan biilayay oo markaas aan qof u baxay u baxay oo beel iga sugayay hooyadii waayeel ah walaalahay sabool waxa bahaysanin ciyaalkayga yaryariska oo midka uu yar oo markaas umusha aan kula jiray konton habeen ayaan umul ahaa intaas baan idin sheegayaa sharciga islaamka kama weyni dhagarta iyo dilka dadka waxa soo diyaariya koox ay u yaqaanaan istikhbaaraad waxaana kooxdaasi xukuma ninkan oo lagu magacaabo Salmaan kaasoo diiday inuu la hadlo barnaamijka Gungaar balse Salmaan ugu dambeyntii waxa uu qiraal ka hor sameeyay fadhiga maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya halkaas oo ka sheegay doorkiisa al-shabaabnimo aniga waa kamid ah laakiin taqyiid ahaan kama mid ahayn qasab awgiisa aan ururkan ugu biray aniga saaxiib aan nahay maxamed xaaji liiraada ay ugu qasbay inaan ku biiro shabaab asagaana barnaamijkaas la waday waxaan waabisna oo kaliya lacagaas oo kaliya koonkii bis ay isticmaali jireen wax hadda shaqo aan qabtin ma jirto Hashim waxa uu ka mid yahay shabakada Maxamed Xaaji la shaqeynayay waxa uu qaabilsanaa hagida iyo saaminta goobaha ay dilalka ka dhacayaan waxaana uu ahaa hagii ugu kalsoonida badnaa Xaaji waliba asaga ayaa ku tashkiiliyay inuu ka mid noqdo kooxda al-shabaab marka ninkaasna saaxiibka waa taqaana horena u taqaanay ururkaas inuu ka tirsanaa anaasan saaxiib aan nahay marka hadda ururkaas waaba ka tirsanaa waa la shaqeeyaa marka adigana waxaan jeclaan lahaa inkastoo saaxiibkayga aad tahay inaan arrintaas aan kugu tashkiiliyo oo adiga go'aan ka gaartid isla markii aniga go'aan degdeg ma gaarin waxaan lahay kuley aniga hadda nin iska shaqaystaan xaasna waa qabaa markaas waxaan ka shaqeeyaa footidii ka shaqeeyaa marka waxaan lahay hoowan waa laga fiican yahay wax hadda aniga arin qidda askari iyo xaas iyo mana aqaano haddana kuma degdegi karo kuley nin xaas qoon waa kuley dib ma loo dhahay laakiin qaabka u malaysa ma qaab kale nooc kale loo shaqeeyaa jirto oo adoo hooshaad wato ciddaadan aysan ku ogaanaynin oo iska fiican
ayaa jirto magaalkaana joogo marka qaabkaas aan ku sheega haday ku qanciso kaas kulay ana horta waa kasoo fikiraa si wax u jiray sheeg marka qaabku ii sheegay qaabka amigu ii sheegay magaalka qaabka loo shaqeynayo hoolasho la qabanayo qaab loo qabanayo waxyaalahaas uu ii sheegay marka faadumo oo magaceeda afgarashada yahay korneylad faadumo ama cosaba waxay u qaabilsanayd shabakadan inay u soo shirqoosho dadka ay rabaan inay dilaan waxayna ballamin jirtay nimanka si kor looga arko iyadoona ka mid ahayd madaniga xamar jajab iyo ururka hooyooyinka qaranka jilcanta iska dhaaf aniga qarax ma ku dhiibanaan hubkan ii qaad ii hay ma ku dhahay degmadaas waxaan ka rabaa wixii ka dhacayo xilliga xilfada ay qabtiin xilliga madaxdeedii imaanayso xilliga ay degmada soo galayaan xilliga ay ka tagayaan sida badan madaxa idii timaado inaa ii soo sheegtid oo maxaan ku ilaa saas oo shaqada ay ila wadadaan rabaa waxaas la ii soo sheeg bis aniga wax kale ay qaban faadumo waxay diri jirtay sawirada dadka ay al-shabaab doonayaan iyadoona qaarkood sukaansi ahaan ula macaamili jirtay markuu ii soo dhigay sawirradii madaniga saasaan ugu dhigay madaniga marka saas ugu dhigay marka waxaa jiray wiil oo madani oo ka gooni ahay sawirkaas oo mootoolo ahay ayaa jiray asna waa u dhigay asiga mootadiisaan u dhigay taargadiisaan u dhigay kaas mayna arkin weli ma arkin waa la joogay ayadoo marka sidii laisku moogyahay haddana waxuu ii soo diray wiilkan oo taliya qaybka ahaa faadumo waxa ay cashirqool u diyaarisay nin iyada ay kala tageen kaasoo ay u sheegtay inay uuru leedahay taasoo aan waxba ka jirin kadibna markii ay ballamisay waxay kor ka tusay koox ka tirsan al-shabaab si ay u aqoonsadaan marka ay dilayaan soo wacay asiga wuxuu dhahay hadaad uur leedahay inay buluhu saxyiin in kale isbitaal ku geynaa ani marka hadalkaas waan ka xanaaqay waxaan dhahay inay buluhu saxyiin in kale isbitaal ku geynaa iflagaadan arkaan dhahay marka wuxuu yiri ima maalo ima wiri xaar ma ku imaanayni waa ka xanaaqay maalinkaas xaar ku imaanayni marka habeenkii soo wacay wuxuu dhahay walaalay waa kugu la kaftamahay hadalkaas iska dhaaf iyo wixii oo dambi aan galnay waxaan ku iraada iska kiyafi xaaladan inay meesheeda ka sii socota rajaynayna oo reerka aan ka doono oo waxaan ku raxmatadan ku geystan aan ka tirtiro marka imo sawiradiisa markaas waa la soo diro taleefankii ku jirin markuu soo wacay amiirka u sheegay xarisaas ay jirto wiilkaas maanta aad rabaa soo dhaxay xafadiis socodaan waa arkayna warjiro qarab ku ballan waa arkayna soo doonay waa soo doonay ayagana sidii ay kor uga arkeen xaafadda aan soo sheekaysan waxaan dhawraal warkii hore la wadahay nakala day waa ka soo laabtay gurigan u soo laabtay nimankaana way arkeen waxyaabaha cajiibka aan ku ogaaday faadumo waxaa ka mid ahayd inay aaminsan tahay khuraafaad iyadoona sidatay warqadan oo ay ku sheegtay inay ka xijaabayso dowladda inay ogaato howlaha ay waddo taasoo sida muuqata ah sixir iyo wax la halmaala haashim oo ka mid ah qaybta sahanka ee kooxda al-shabaab mar hadda ka hor la xiray maxamed xaaji waxa uu ahaa shakhsigii u dhexeeyey maxamed aabiis iyo kooxda al-shabaab wuxuuna sheegay inuu mar kasta la xiriiri jiray aabba xaaji una sheegi jiray in wax kasta oo dhaqaalaha u baahdo ay ka caawin doonaan si loo soo daayo xaaji aabiis waxaan dhihi jiray xaalad intay maray meel bis waxaan sheegi jiray inay ardaydii ama dhalinyartii ururka goolmareer dhalinyarta inay wax walba ay garab taagan hadii loo baado qarash hadii loo baado wax walba ana u sheegayna wiilkiisa meeshii lacag hadii loo baado laga helayo dadka caawinayo aan qarinayo intaas aan u sheegi jiray laakiin lacag isku day jiray inuu hadii loo baahdo in soo dhiyo lacag lagu furdaaminayo business laakiin aabbaha dhalay maxamed xaaji oo aan la kulmay waxa uu diiday in ninkan ay wax wada hadal ah galeen isaguna uu iskiis ugu dadaalay sii daynta wiilkiisa wiilka hadda kahor waa iska jirtay
ilmaha dala xiray yani raaf uu galay raaf waa iska jiray marka raaf baa la galaa xirmo oo raaf waa la galaa sida caadiga ah raafta waxaa jira wax uu gal la yidhaahdo lagu soo qabto iyo wax oo macnaha dhacdo fal of sameeyey ama oo dad sameeyey lagu tumaa oo wagaal la geyn la duubaayo iyo waxaa jiro howlgal guud oo la socdo howlgal guud lagu socdo meelahaasaa lagu xiray marka dam guud maanaha waxna waa lagu baay waxaan leeyahay hadduu dambi leeyahin hala xukumo hadduu dambi leeyahanna yani alisi ma jirtaa cid kaa gacansiisa markaasi deyntii maxamed xaaji waxa uu qabaa in horjoogayaashooda aysan ogolayn carruurtoodu inay galaan dhibka iyagu ku jiraan taasna ay tahay tuun ay qabaan balse aysan kor u sheegi karin sababo la xiriira xabsi ay qabaan isweydiina ilmahoodii aaw ilmahoodii waa laga dheereeyaa maxaa yeelay ayagaa lagu korraadina maraykana canuga ninka ku korraadin karo nacsu way fikiraan xaqiiqda laakiin saas ma ahan xaqiiqda waxaa nin walba canugiisa waa ku kulaanaya tusaale ahaan cali jabal ciyaarkiisa dhan way u kala maqan yihiin marka laga rabo wiilkiisa lala duqeynayo al-shabaab waxay maxamed xaaji ilka xase ku dareen haweenay u ka dhintay ninkii isku qarxiya hotel ambashador oo lagu magacaabo qaali cabdirasaaq taasoo hooyadeedna ay ku jirto xabsiga dhexe loona xukumay al-shabaabnimo iyo hubhayn qaybta koowaad ee barnaamijkeenna gungaar waa naga intaa qaybta labaad oo aan uga hadlayno siday wax u dhagraan kooxda al-shabaab kala soco habeen dambe isla 8 fiidnimo telefishinka qaranka